وبركاته. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. حضور كان قيمها بدن odayaasha sharafta leh iyo maaragtay ardayda hooyooyinka intaba waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin wada barakeeyo. waqtiga aad soo bixiseen runtii ma noqonayo waqti khasaaray, lianna waxyaabaha ugu qaalisan oo rasuulkeeni sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay ayaa waxaa ka mid ah waqtiga. wuxuu yidhi laba nicmo ayaa jirta dadka badigooda ay ilowsan yihiin. labadaas nicmood wuxuu ku tilmaamay rasuulkeeni sallallahu alayhi wasallam alfiraaq was-siha. intaasi kadib munaasabadan maanta aan u joogno waa farxad inaan la qaybsano walaalaheen ama waalidiinta qiimaha badan. waxaan u jeednaa dad sharaf badan oo soo barbaariyay ciyaal qiimo badan. waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago qiso yar oo rasuulkeeni sallallahu alayhi wasallam ay ka sugnaatay. qisadaasi ayaa waxay sheegaysaa maalin maalmaha ka mid ah